tan iyo markii uu bilowday weerarka Ruushka ee waddanka Ukraine waxaa lagu soo rogay go'doomin caalami ah dalka Ruushka waxaana ay ku kaliftay in dadka Ruushka ay ku qulqulaan wadamo dhaqaalahoodu ay ku badbaadsadaan si ay uga baxsadaan cunaqabateynta. Turkiga ayaa ka mid ah dhowr dal oo la sheegay in ay ku qulqulayaan lacagaha Ruushka. sidoo kalena Turkiga ayaa noqday dalka kaliya ee martigeliyay duulimaadyada maalinlaha ah ee waddankaas oo ay u dheertahay dalxiiska sii kordhaya sida uu sheegay wargeyska Daily Sabah ee dalka Turkiga. muwaadiniinta Ruushka ee ku sugan Turkiga ee ka tagay dalkooda ayaa hadda ku ordaya in xisaabo bangi ay ka furtaan dalka Turkiga si ay dhaqaalahooda ugu shubaan nidaamka caalamiga ah isla markaana ay u maalgeliyaan noloshooda, iyadoo muwaadiniinta iyo sidoo kale ganacsatada reer Ruushka ay la daalaadhacayaan cunaqabateyn caalami ah oo lagu soo rogay dalkaas kadib duulaankiisa ee waddanka Ukraine. dad badan oo Ruush ah ayaa ku qulqulaya Turkiga iyagoo ka baxsanaya shaqadooda oo ay waayeen ama fiise la'aan cunaqabateynta dhaawacday dalkooda awgeed. shirkadaha caalamiga ah ee Turkiga ayaa hadda ku duulaya duulimaadyo isdhaaf ah oo ay ku kala gooshayaan Istanbul iyo Moscow, iyadoo diyaaradda Turkiga ee Turkish Airlines aysan ku biirin wadamada joojiyay duulimaadada ee dalka Ruushka. Turkiga ayaa sidoo kale ku biirin wadamada reer galbeedka ee cunaqabateynta Ruushka, iyadoo Ankara ay sii wado dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo colaadda Ukraine, iyada oo ku boorinaysa dhammaan dhinacyada inay iska xakameeyaan, iyadoo Ankara sidoo kale ay ilaalinayso mowqifkeeda dhexdhexaadnimada iyo dheelitirka. Ankara ayaa ka soo horjeesatay cunaqabateynta caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu go'doomiyo Moscow. Turkiga ayaa sidoo kale martigeliyay wasiirada arrimaha dibadda ee labadan wadan wadahadallo ka dhacay gobolka Antalya. mowqifka dhexdhexaadka ee Turkiga ayaa ka dhigay waddanka meel ay door bidaan dadka Ruushka, kuwaas oo guud ahaan dalka u qaata ikhtiyaarka ee ugu horeeya fasaxa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay bogga maalinlaha ah ee dhaqaalaha Turkiga oo soo xiganaya ila ka tirsan waaxda bangiyada. waxaa sare u kacay dalabaadka muwaadiniinta Ruushka ee doonaya in xisaab bangi ay ka furtaan Turkiga. toddobaadyadii la soo dhaafay, bangiga dhexe ee Ruushka ayaa horey u xadiday wax kala iibsiga lacagaha ee dibadda. waxa uu joojiyay iibinta efrak ee ka dhanka ah rubalka ilaa iyo Sebtembar 9-keeda. si muwaadiniinta ajnabiga ah ay akoonno bangi ah uga furtaan Turkiga, waxay u baahan yihiin deganaansho, lambarka canshuurta, lambarka baasaboorka iyo lambar taleefan gacanta ah. laakiin maadaama lacagta rubalka ee Ruushka aysan u muuqan lacag la bedeli karo, hadda waxay u baahan yihiin dadka Ruushka inay furtaan xisaabaadka lacagta liiraha ee Turkiga. ila wareedi uu soo xigtay wargeyska Daily Sabah ayaa u sheegay in xisaabaadka liiraha ee Turkiga Ruushka uga faa'iideystaan laba siyaabood. mid waa inay u ilaashadaan nolosha Turkiga, iyo tan kale oo ah inay furan karaan xisaabaadka forex. ila wareedada ayaa sidoo kale intaa ku daray in baahida loo qabo xisaabaadka bangiyada Turkiga la filayo in uu kor u kaco tan iyo inta la filayo in cunaqabateynta uga sii dari doonto Ruushka. habka kale ee loogu talagalay dadka Ruushka waxay u muuqdaan inay sameeyeen macaamiil ganacsi ama keed iyadoo loo marayo suuqa ee cryptocurrency. Ruushka waxaa laga diri karaa lacagaha kriptada waddan kasta oo adduunka ah loona diri karaa waddan kale iyada oo aanay gelin nidaamka bangiyada. intaa waxaa dheer, shirkadaha kaararka deynta sida Visa iyo Mastercard ayaa sidoo kale mamnuucay bangiyada Ruushka, laakiin waxaa jira dooqa ugu wanaagsan ee dalka Turkiga. Fakif Bank, Siraacad Bank iyo kuwo kale waxa ay leeyihiin ikhtiyaaro ay door bidayaan dadka Ruushka. Turkiga waxay diiday dalabaad uga yimid dalka Ukraine oo looga codsaday in bangiyada ee dalka Turkiga ay mamnuucaan lacagaha iyo bangiyada ee dalka Ruushka. bangiga dhexe ee Ukraine ayaa Arbacadii la soo dhaafay wuxuu ka codsaday Armenia, Kazakhstan, Vietnam, Tajikistan iyo Turkiga bangiyada dhexe inay joojiyaan dhammaan wax kala iibsiga kaararka ee nidaamka lacag bixinta ee Ruushka. marka laga hadlayo dhinaca duulimaadyada, Ruushka wuxuu ku dhawaaday in uu ka go'o dalalka galbeedka, iyadoo sababtu ay tahay xiritaanka hawada iyo cunaqabateyn lagu soo rogay shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka. si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa weli haysta fursad badan suuqa caalamiga ee duulimaadyada, iyadoo ay ugu wacan tahay xiriirka Turkiga. 378 wadan oo u badan kuwa Yurub kuna jiraan Kanada iyo Mareykanka ayaa mamnuucay isticmaalka hawada ee shirkadaha Ruushka, taas oo qayb ka ah xirmooyinka cunaqabateynta. wadar ahaan taasi waxa ay ka dhigan tahay hoos u dhac 29.2% duulimaadyada caalamiga ah ee Ruushka. waddanku weli wuxuu ku xiran yahay Aasiya, Afrika iyo Bariga Dhexe, laakiin Turkiga wuxuu si dhaqso leh u noqday marinka ugu badan ee la isticmaalo ee laga galo ama laga baxo Eurasian, iyada oo ay ugu wacan tahay tirada dadka duulimaadyada. xogta laga helay bogga Aviation Online ayaa muujiyay in Turkiga uu yahay suuqa caalamiga ah ee ugu weyn Ruushka, taas oo ka dhigay 17.25% duulimaadyada. waa meel caan ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha ee Ruushka oo u guura qiyaastii 6 milyan oo socdaal ah sanadkii. marka laga tago dalka Turkiga, waxaa jira laba wadan oo kale oo noqday marinada halbowlaha ee dhaqdhaqaaqa Ruushka.
labada dal oo kale ah Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha. Imaaraadka ayaa noqday dalka labaad ee ay doorbidaan muwaadiniinta dalka Ruushka ee ka cararaya go'doominta lagu soo rogay dalkooda. Boqolaal ka mid ah maalqabeennada Ruushka ee lagu soo rogay cunaqabateynta ayaa la sheegay inay doorbideen in ay u wareegaan Imaaraadka. dabcan Imaaraadku ma ahan meesha keliya ee maalqabeennada cunaqabateynta ka cararaya lacagaha ay ku qarin karaan. waxaa jira 23 waddan oo la sheegay inay ku jirto Pakistan, South Sudan, Yemen, Morocco iyo kuwo kale, kuwaas oo dhammaantood ah meelaha loo wareejiyo lacagaha ee maalqabeennada Ruushka ee doonaya inay ka badbaadaan cunaqabateennada reer galbeedka. laakiin qaar ka mid ah qurumaha ee hadda taageeraya dadaalka lagu doonayo in Ruushka looga gooyo dhaqaale ahaan, waxaana jira sababo dheeraad ah oo ka dhigaya Imaaraadka inay noqoto dalka labaad ee soo jiidashada leh. Dubai waxay muddo dheer ahayd goob caan ah fiisa la'aan oo loogu talagalay dadka Ruushka, iyadoo soo jiidatay ku dhowaad 750,000 oo dalxiisayaal oo u dhashay Ruushka. ku dhowaad 100,000 oo qof oo ku hadla afka Ruushka ayaa loo maleynayaa inay hadda ku nool yihiin, iyada oo ku dhowaad 40,000 ay ka yimaadeen Ruushka, inta soo hartayna ay ka yimaadeen wadamada midowga Sofiyeeti. marka laga hadlayo duulimaadyada, Imaaraadka Carabta ayaa noqday dalka labaad ee helay duulimaadyada ugu badan ee Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa in 13% duulimaadyada ee Ruushka isticmaalaan Imaaraadka. waxaa intaa dheer, Ruushka waxa uu xiray 121 garoon oo diyaaradeed oo ku yaalay koonfur bari dalkaas. xiritaanka hawada ee ku hareereysan ayaa sii yareysa marinada laga soo galo iyo kuwa laga baxo ee dalka, iyadoo arrintaasi laga duulayo islamarkaana ka faa'iideysanaysa xaaladda ayaa diyaaradda Turkish Airlines waxa ay bedeshay jadwalkeeda qayb weyn oo ka mid ah. waxa ay kordhisay tirada duulimaadyada. Turkish Airlines waa mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ugu badan ku taga caalamka, iyadoo la tixgelinayo joogitaankeeda baaxadda leh ee Ameerika iyo Yurub, halkaas oo laga fahmi karo muhiimadda ay siisay Ruushka mar haddii waddankan la cunaqabateeyey. shirkadaha kale sida Fly Dubai, Emirates, Qatar ayaa ka mid ah shirkadaha kale ee sameeyay duulimaadyada ugu badan ee Ruushka. Ruushka ayaa hadda u muuqda mid ku badbaaday waddanka Turkiga iyo sidoo kale dalalkaanu soo sheegnay. hase ahaatee, inta badan sida muuqata, Turkiga ayaa hadda badbaadinaya Ruushka. haddii Turkiga uu cunaqabateyn ugu dari lahaa Ruushka, waxa ay noqon lahayd xaaladdu mid aad u adag, sababtoo ah waxaa jiri lahaa dalal kale oo Carabta iyo sidoo kale Afrika oo ku dhiirada inay ka hor yimaadaan Ruushka. hase ahaatee, hadda waxa ay muujinaysaa in colaadda Ruushka ay ku kooban tahay oo keliya Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka. waxaana sidoo kale hadda Ruushka uu ka fikirayaa sidii uu usii xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee uu la leeyahay Turkiga, maadaama hadda meel lama filaan ah Turkiga uu uga soo baxay dowladdan oo xaaladdu aad uga adkeyd. daawad aragtidaada fadlan qaybta hoose kommentiga noogu reeb. mahadsanid.